maxay tahay sababta uu Maraykanku u neceb yahay Iiraan? Iiraan waxay leedahay keed shidaal oo ka mid ah kuwa ugu waaweyn adduunka, laakiin ilaa sanadkii 1951 Ingiriiska ayaa si dhab ah u maamulayay warshadaha shidaalka ee Iiraan, halka Iiraan ay heli jirtay oo keliya 16% faa'iidada ka soo baxda. Waqtigaas ra'iisul wasaarihii Iiraan joogay Mohammed ayaa qarameeyay oo dowladda Iiraan hoos geeyay shidaalka Iiraan, waxaana ka qaaday gacanta Ingiriiska. Kadibna Maraykanka iyo Ingiriiska waxay bilaabeen howlgal la yiraahdo Operation Ajax, kaas oo xilka looga tuuray ra'iisul wasaarihii waqtigaasi ee Mohammed sanadkii 1953, waxaana mar kale talada lagu soo celiyay Mohammed Pahlavi oo ahaa shaaha Iiraan ama boqorka Iiraan, kana helayay taageero Maraykanka. Intaas kadib 40% shidaalka Iiraan waxaa lagu wareejiyay shirkadaha Maraykanka iyadoo la sameeyay heshiis cusub oo shirkad wadaag ah. Shaaha ayaa xukumayay 26 sano, balse dowladdiisu waxay noqotay mid sii kordhisa musuqmaasuqa iyo kalitalisnimada. Booliiska sirdoonka ayaa si arxan darro ah u caburin jiray cid kasta oo ka hor timaada. Dad badan ayaa u arkayay inuu yahay madax u shaqaysa reer galbeedka oo kheyraadka shidaalka Iiraan ku wareejiyay shirkado shisheeye. Ugu dambeyn sanadkii 1979 shacabka Iiraan ayaa ka daalay xukunkiisa, waxayna rideen dowladdiisa intii lagu jiray kacaankii Iiraan, taas oo keentay in talada dalka uu qabto Khomeini. Khomeini waxa uu markaasi dib u soo celiyay in Iiraan ay si buuxda u maamusho warshadaha shidaalka ee dalka. Kadibna Iiraan waxa ay dib u bilowday oo ballaarisay barnaamijkeeda nukliyeerka, taas oo sababtay in lagu soo rogo cunaqabatayn dhaqaale oo adag. xitaa markii Iiraan ay ogolaatay inay wada hadal gasho oo muujiso diyaar u ahaanshaha tanaasul, wada hadalladaasi marar badan waxa uu wiiqay cadaadis ka imaanayay Maraykanka, cunaqabatayn iyo weeraro ay qaaday Israa'iil darteed. Iiraan waxaa lagu haystaa waxa ay tahay sababta aad idinku u noqoteen waddan ka madax bannaan gumaysiga casriyeysan.